madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta daahfuray qaybinta manhajka waxbarashada qaranka. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa daahfuray qaybinta manhajka qaranka oo ay diyaarisay wasaaradda waxbarashada. Wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Barre, ayaa sharaxaya nooca manhaj ee la qaybinayo. maanta meesha waxaan u taaganahay ilaa fasalka 8aad oo isna soo dhamaaday muddadaas gaaban gudaheeda oo maanta munaasabadu ay tahay 1,040,000 oo buug oo wax lagu barayo caruurta u dhaxayso fasalka 1aad ilaa fasalka 8aad. runtii waa wax ammaan weyn taasna ilaahay mahadiisa ayay ku gaartay iyo dadaalka xukuumadda maanta waddanka ka taliso ee adigu hoggaankeeda tahay. mudane madaxweyne waxa kale oo maanta la qaybinayaa oo hawsheedu bilaabatay 102,000 oo buug oo loogu talagalay macallimiinta dhigaysa manhajka inay iyaga siday wax u dhigi lahayn ay ka bartaan. waxaa fursaddan ka faa'iidaysan doono 300,000 oo arday Soomaaliyeed oo fasalka 1aad ilaa fasalka 8aad ee u dhaxayso waxbarashadooda. taa macnaheedu wuxuu yahay 915 iskuul ayaa buugtani ay gaari doontaa haddii ay idmo. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay isagana in dowladdiisu ay muhiimadda koowaad siinayso waxbarashada dalka isla markaana ay la wareegeen siday talada dalka u qabteen 24 iskuul. runtii sida aad sheegtay 3 sano hadda ugu dambeysay waxaan la wareegnay 24 iskuul waxaan wax barnaa 65,000 oo arday ah. insha Allahna waa kordhinaynaa maxaa yeelay waxaan ognahay ardadeenna intooda badan inaysan iskuul aadin aysan tabartooda lahayn marka waxay noo tahay runtii muhiimad weyn iyo noo tahay ama juhdi weyn aan gelino in aan ka dhigno wax la awoodi karo ama cunug walba ama ilmo walba oo aan awood u lahayn iskuulada inay aadaan private-ka ah inaan u diyaarino waxbarasho mustaqbal leh inaan u diyaarino. runtii halkan waxaa iga muuqda in waqti iyo juhdi weyn la geliyey aad iyo aadna waxaan uga mahadcelinayaa Badar kaalinta uu ka qaatay daabacaadda oo aynan ka doonan dibadda. macnaheedu waxay tahay inaan isku filnaanshaheenu maalin ka dambaysaba inuu gaarayo horumar tallaabana aan hor u qaadeenno. mudane wasiir adiga iyo wasaaraddaada inta aad timid waxaan uga mahadcelinayaa runtii kaalinta aad ka gasheen ama kaalinta aad ka qaadateen sidii aad waxbarashada caruurteenna aad kor ugu qaadi lahaydeen. Harad Ali Guuleed, Goobjoog.